سأظل بنتا لبيان وفية. runtii horeyna waa u tilmaanay in alhuda habwal ay hore u socoto oo haddana ay dhex gashay xitaa dadkii aan muslimka ahayn inay daweyso oo dawadooda ay ku qancaan. waxaa la yiraahdaa Yunis Iyeri waxaa la igu soo cadeeyay cudurka kansarka sanadkii 2012 waxa aan qaatay dawooyin ay taqaatiirtu siiyaan dadka kansarka waxa aan ku sii noqday daciif sababtoo ah waxa aan qaadanayay cirbadihii kansarka waxa aan la kulmay walaalkaygan waxa aan bilaabay inaan qaato dawooyinka shirkadda Al-Huda markii aan qaatay dawooyinkan muddo 6 bilood ah waxa aan dareemay farqi weyn iyo in aan aad u fiicnaaday waxa aan ku noqday isbitaalkii oo aan dib isu soo baaray halkaasi oo ay ku cadeeyeen inaan qabin cudurkii kansarka oo aan ka bogsaday waxa aan dib ugu laabtay shaqadeydii caadiga ahayd hadda waxa ka soo wareegatay 1 sano markii aan bilaabay dawada waxa aan ku dadaalaa inaan ka caawiyo dadka kale oo ka sheeganaya cudurkan inaan gaarsiiyo dawadan aabahay waxa uu dhintay 2014 cudurka kansarka laakiin waqtigaasi ma aanan aqoon dawooyinkan wax ay tusayna ma aysan jirin waxaan ugu mahad celinayaa Sheekh Farxaan Cali Dhimbil oo si aad ah ii caawiyay maadaama aan dawooyinkan markasta gada karin Allah ka abaal mariyo sheekha mahadsanidi. My name is Stephen Iweta. magacaygu waa Stephen waxa aan qabay sokor iyo dhiikar waxa aqrisma awoodin indhaha aragooda oo yaraaday awgeed runtii waxaan isbitaal galay 2 jeer waxaan qaatay dawooyinka shirkadda Al-Huda 1 bil iyo bar waana ka bogsaday cuduradii hadda waxaan kula talinayaa dadka ka sheeganaya cudurrada dhiikarka sokorta iyo aragaba inay isticmaalaan dawooyinka shirkadda Al-Huda waxaan la kulmay dad badan oo ka faa'iideystay waxana mahad leh Allah nagu maneystay dawooyin noocan ah oo dabiici ah. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan ka wada faa'iideysano si Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu wada anfaco wax qofka bil aadanka aan waxba u dhimayn jirkiisa faa'iidana gelinaya salaskii bil aadankana dhisaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ku siinayo billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.